haween ku dhaqan degmada Gurceel ayaa deeq isugu jirta cunno xoolo iyo qaboojiyaasha biyaha ku wareejiyay maamulka degmada Gurceel. Ururka haweenka ee degmada ayaana deeqdan ugu talagalay ciidanka ku sugan furimaha hore ee dagaal kula jira kooxda Al-Shabaab. Gudoomiyaha haweenka degmada Gurceel Deeqa Aadan iyo gudoomiye ku-xigeenka haweenka Aisha Cabdullaahi Maxamed oo labaduba la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay garab taagan yihiin cutubada kala duwan ee ciidanka dawladda ee dagaalka kula jira ururka Al-Shabaab. Gabdhaha ururka haweenka meesha safan oo soo aruuriyay agabkaas ariga leh oo cuntada darayga qalalan leh oo mid qoyan leh oo baawurka hore baxay iyo baawurkaanba keenay maxay tolo sheegeen una dhabar xigtay inay ka qayb galaan halganka ka socda gobolada dhexe iyo Soomaaliya oo dhanba aan dhaho. marka waxaan leeyahay anagu waxaan garab taaganaa mar walba ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo xoreynta u istaagay u dhabar adeegay banaanka taagan anaguna garabkooda taagana waxaan rabnaa gadaal inaan anaguna ka soo qaban qaabino wixii agab oo loo baahan yahay hadda waxaan waa bilaaw wax ka horeeyana way badan yihiin laakiin hadeer wali la isma gaarin xabadu ma bilaabin haddii xabadu bilaawatan waxaan rabnaa furunta inaan tagno oo hore waa u tagnay hadda inaan tagnaa rabnaa xataa haddii ay noo saacadeen qoryaha garabka gashanaa rabnaa dagaalno. salaanka bacdi aniga ku hadlay afka ururka hooyooyinka degmada Gurceel waxaan maanta soo gaarsiinay maamulka degmada sidii horeba aan u wadnay bahalka la yiraahdo agabkii cunadii darayga ahayd sidii biskutka timirta caagadihii daharnaay ciidanku ay ku howlgalayeen aan maamulka soo gaarsiinay hawshan waxaan bilawnay markii ay bilaabatay in lala dagaal qawaarijta ilaa ay haddana waan wadnaa ilaa ay soo afjarmayaan qawaarijtuna waa wadaynaa waana wadi doonaa waxaan inkaga wadnaa ciidanka qaranka iyo maxaa tirahdaa ciidamada qaranka meel walba ay joogaan taageere iyo fariin iyo salaan aan ka wadno deegaanka maxaa tirahdaa gabdhaha nagu matala oo jaariyaha dibadda ah oo qaasatan galmudug ah in ay idin garab taagan yihiin heli oo in garab taagan yihiin ay dhagahoodu taagan yihiin sembre ay qaas qadadka ugu jiraan in ay maxaa tirahdaa ilaa qawaarij ay soo afjarantana ay idin la garab taagnaa doonaan heli hooba waa in kaga wadnaa waana idin kaga mahad celinaynaa sida quruxda badan oo geesinimada leh oo sembre iskaga celisaan maxaa tirahdaa qawaarijta la dagaalankeeda fashil walba ay damcaan in ay maxaa tirahdaa ay sameeyaan aad uga hortagaydiin una maxaa tirahdaa fashilinaydiin gaadmadooda waa in kaga mahad celinaynaa waana ku ammaanan tihiin. ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada Gurceel Faarax Cabdi Macalin ayaa uga mahad celisay haweenkan sida ay u garab taagan yihiin geesiyaasha qaranka. waxa horteena yaala oo ay maanta nagu wareejiyeen gabdhaha degmada reer Gurceel caag dahaaro ay ugu tala galeen in biyaha ciidanku ay ku qaataan cunto daray ah sida buskutka iyo timirta iyo sida aad maqlayseen waxaan dhigi karnaa waxyaabahan maanta naloo keenay waa agabkii loogu baahida badnaay ciidamada duurka ku jira. waxaa sidoo kaleeto garab socda ari ay ugu tala galeen in ciidamada loo qalo gurmadku intaan kaliya ma ahayn horeyna waa noola garab taagnaayeen waxaan markhaati ka ahayn inay jiidaha inta tagaan noogu yimaadaan intaan joognay ay ciidamada ay fariintan iyo mid ka muhiimsanba ay keeni jireen. waxaan leeyahay marka waxaad mudan tihiin ku dayasho ilaahay agtiisana ajar aad ka helaysaan waxa lagu jiro waa dagaal jihaad ah intaan kaliya ma ahan waxaan rabnaa inaad sii wadaan abaabulka sidii reer Gurceel lagu yaqaanana in si ka wanaagsan ka haboon ka qurux badan sida halganka hadda aad garab taagantiin inaad u sii laba jibaartaan haddii ilaahay yiraahdo annaguna waa in kaga amaalhaynaa dawladda aan wakiilka ka nahay hadday tahay midda state-ka ee galmudug iyo midda federaalkaba oo aad garab taagan tihiinna amaal bay inii haysaa ilaahay agtiisana ajar aad ka helaysaan marka inaad sii laba laabtaan ciidamada garab taagnaataan waa wiilashiinii waxa duurka jooga cadowga la diriraya waa wiilal Soomaaliyeed marka inaad sidaas u sii garab taagnaataanna waa in ku dhiirigelinaynaa. waxaan rabaa sidoo kale in ayagana u mahad celino haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer galmudug idinka in ku daaban ama in ka dambeeya fariimaha guubaabada ah iyo akhbaarta aad nooga wadiin waxaan rabnaa dagaalku waa mid mustaqbalka Soomaaliyeed iyo nolosha Soomaalinimada ay ku salaysan tahay waa in horta saas loo fahmaa qof kastana meeshuu joogo ku saameey doonaa. Al-Shabaab haddii laga raayo oo laga badiyo waxa badiyay waa Soomaali oo dhan haddii caqabad ka soo laabatana waa cadow Soomaaliyeed qof walbana way saameynayaan marka waxaan rabnaa guushi waa dhowdahay cadowgiina wuu burburi rabaa qurba joogta gaar ahaan haweenka qurbaha jira inay dagaalka garab istaagaan odayaashu inay garab istaagaan dhalinyaradu inay garab istaagto dhammaanteen hawlaha aan hayna inaan dagaalka isugu geyno si dalka loo xoreeyo. Axmed Faarax Maxamed warbaahinta SMS Gurceel.